oo ay tahay inaynu kuwaana qaadano dadkii iyagoon dhiman bay keli noqdeen qofkii isagoon dhiman oo weli godkii gelin ayuu noqday keli waa waxa ugu darane meesha cusbitaalada ka jira qof laba familigiisii oo dhami joogo dadkiisii oo dhami joogo caruurtiisii joogto islahaa maanta haddaad meel ku xanuunsato intaasoo tigidh baa laguu soo goosanayaa caruurtaada madaxa ku hayn doonta ninkaagaa kula joogi doona xaaskaagaa kula joogi doonta qof waliba ku haminayay qof kastaaba waxay naftu ka baxaysaa isagoo keligiya shalay waxaan la joogay nin wadaad ah oo dhintay oo muslin ah 6 wiil iyo 2 gabdhood leh wuxuu yidhi sisterey waan ogahay inaan dhimanayo laakiin ma anigoon qabrigii tegin baan kali noqday dadkaygiina bannaankay taagan isagoo weli ashahaadanayana nafta way ka dhacday waa mucjisada ugu adag dadkii iyagoo keyrkeyraya bay dhimanayaan oo dadkoodiina joogaan ma inaynu ku cibro qaadano weeyaan waa waxa ugu adag ee aan arkay walaal cadiim inaguna waa inaynu ku cibro qaadano maxaa laynagu yidhi diintaynu ina bartay aan caruurtaada ku raacayn xoolahaagu ku raacayn yacniga camalkaagii kaliya ku raacayo qabrigiiba intaanay tegin bay intiiba bannaanka ku hadheen qabrigiiba iyadoosan tegin inuu qofkii nool yahay oo uu miyir qabo ayuu leeyahay muxuu ahaay ayuu ku hadhayba wixiiba bannaankay ku hadheen manaad dhimane ka waran weli waad nooshahay oo waad joogtaa waad hadlaysaa raalli ahaada inaan idinka oohiyo ama aan idinka maaragtay welweliyo may ahayn laakiin waa khasab inaan sheego kolley aniga qalbigayga aad bay u gilgishay runtii waa arrin inooga baahan cibro qaado